dadka reer baxdo meel ay joogaanba waxaan uga mahad celinaynaa sida ay wax u qabsadeen isugu tashadeen runtii deegaan inta ay qabsaday dhul ballaaran oo galmudug baan soo marnay waa yarya waxaan soo aragnay isbitaal si weyn loo diyaariyey iyagu dhisteen cid gacan ka siisay oo aan ahayn communitiga ama jaaliyada dawladda haddii ay kaashadeen oon reer baxdo ayaan aragnay intii ka dhiman oo ama qalabayn ah ama dawladda galmudug gacan geysan karto ayaan ka kaalmaynaynaa inta badan ayaa qabsaday sidoo kale saldhiggan ballaaran sidaad arkaysaan u dhisan dhammaystiran ciidanka booliisku ku howlgelayaan si buuxda waxaa dhistay reer baxdo waxaan soo aragnay iskuulka hoose dhexe oo ay iyagu dhisteen oo aan cidina gacan ka siin reer galmudug ama sida saxda ah loo baahan yahan waxay tahay in wax la qabsado inta dhimana loogu daro runtii deegaano badan baa wax qabsaday oo meel fiican wax soo gaarsiiyey laakiin reer baxdo waa u horreeyaan reer baxdo waxaan leenahay waxaad muujiseen shaqo ku dayasho mudan oo reer galmudug inay ku daysadaan mudan annaga waxaasaan u baahanna wixii aan la heli karin dawladdu waa raadi kartaa laakiin wax walba dawladdaha noo qabato sax maaha sidaan oo kale inay wax u qabsadaan waxaa kaloo haddana iyadana xaruntii degmada oo ay sidoo kale iyagu shaqadooda qabsadeen xoolahooda ku dhisteen isu kaashadeen gacmahaas qabsadeen waxaan hadda tegi doonnaa oo iyadana rabnaa inaan soo marno dugsiga sare oo iyagu ay haddana sidaas oo kale la yimaadeen reer baxdo hadday tahay macallimiin hadday tahay dhakhaatiir hadday tahay ciidamada oo laydin xoojiyo inta galmudug ay heli karto oo ay hay-ado iyo dawlado saaxiib ah kaashan karto ayaa laydinku kabayaa oo laydin qabanayaa waana ku mahadsantihiin sida aad u tashateen degmada iyo hawsheeda oo laga wada hadlay dawladihii dalka soo maray kala dambeeyey waxay ku dhawaaqeen degmada baxdo degmay ku dhawaaqeen dawladda galmudugna habraacii iyo sharciyaddii haddii wax ka dhiman yihiin way soo marsiinaysaa waa soo ansixinaysaa waana ka qaadanaysaa waajibkeeda degmana lagu dhawaaqi doonaa insha allah